السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامية ولا له كحرا and YouTube كيجا Mastering Power Within وحيد الله لما أنتي ملك سؤال جوكتان نبض يعافيمات يغوارا أن أهل كينا إيو قرابة إيو دماني تودن هذا نسي قلو وحن أيان تنوذي ناسيسيست وحكا الله إن شاء الله ما أنتو حكا الله توبيك آد وحيس بدن وحكا دوني يقرسي قدال وديقو سيفا عنو فريسو yes this topic waa topic muhiim aad u ah oo aan doonaya xataa aniga xataa safiya ahaan slow down inaan sameeyo oo si aad ii fahantid waayo waa muhiim inaad fahantid waa muhiim in dhaqankan waxaan maaragtay oo naasista ku dhaqmaan in naftaada aad kaga badbaadisid familkaagana kaga badbaadisid again anigu u soo laabanay maadaama aan kasoo hadlay last time waxaan kasoo hadlay flying monkeys dadka maaragta duula ama ka daba shaqeeya ama ayagoo sometimes ogeynba subxaan allah ma dhihi karno ayagoona ogeyn ayay dabinta galaan dadna ayagoo og dabintaas markay galaan waxay kusii dhaqaaqaan maaragtay waxa uu narcissistkaas uu rabay inuu qofka kale ku ciqaabo laakiin maanta waxaan gelaynaa another term ogow channelkayga waa more education because waxaan doonayaa adigaba inaad baratid waxa ku dhibay inaad baratid waxa aad la yaabtay workplace narcissist markaan ka hadlaayana it's not only family kaliya narcissist waxa soo galayo meesha ka shaqaysid dadka la shaqaysid waxa soo galaayo friendskaaga soo galaayo waxa soo galaayo dad family is maaragtay xaas ah waxa soo galaayo dad isla dhashay oo isku guri wada jooga waxa soo galaayo xataa waxa soo galay markino groups xataa soo galaayo subhanallah politician soo galaayo xataa so I need you na si fiican dhageysatid inshallah and bear with me ereyga hadda ka hadli rabo asagana mu ahaayo af Soomaali laakiin waxaan ku siinayaa wax u dhow adigaagan raba inaad ila shaqaysid oo aad commentiga ku qortid qaabka isleedahay si ay walaalo kale uga faa'iidaan okay waana ku mahadsantihiin last time walaalaha saas oo kale ii soo qoray qaarkoodna email igu soo diray qaarna commentiga ku qoray waana fahmay waana mahadsantihiin good maanta waxaan ka hadlaynaa wax la yiraahdo triangulation what is triangulation narcissistic isticmaalo triangulation waxaa la dhahaa ama wuxuu dhacaa marka labada qof uu qof narcissist yahay or within the family let's say ama shaqada workplace oo kale adi halan soo qaadan haduu ilaahay idmo labadooda ay qof narcissist uu yahay ee laakiin isla hadlin islama hadlaan communication koodii wuxuu noqday zero okay markiis isla hadlin maxaa dhaca qofka narcissist marka wuxuu sameeyaa triangulation kan oo ah inuu dad soo casumo outside ah third party dad kale ka baxsan familka inuu soo geliyo wuxuuna u soo gelinayaa muhiimadiisa u soo gelinayaa groupka in maaragtay informationka maadaama direct u bixin labada qof ay isla hadleenin qofka kale uu ka caroodo uu ka aamusay laakiin qofka narcissist wuxuu isku dayaa in uu dad kale waco dadkaasna uu target ka dhigto dad asaga in ay u qariyaan ama fahmaan muxuu sameeyaa marka ay arintaas triangulationka uu sameynayo qofkaas narcissist ah subhanallah in uu control the situation ama maaragtay xalka jiro waayo family kasta ama maaragtay meel shaqo marka la joogo waayo qof walba wayna wada heshiiyaan wada shaqeeyaan for the shaqada purpose family ko kale for the family purpose in la isfahmo in maaragtay xitaa hadii la kala tagay labada qof ay awoodaan inay dhahaan okay labadana naga dhex saar waa dadka narcissist ahayna ka hadlaa qofka narcissist dabeecadiisa lahayn qofka kale wuxuu ku fikiraa okay maadaama aan kala tagnay there's nothing to do ilmaha hadday meesha kusoo jiraan biilka waa kan maxaa la yiraahdaa maxaa u baahantiin ilmaha qalbigooda ilaaliya waxooda ilaaliya laakiin way ka duwan tahay qofka narcissist ah markuu isticmaalo triangulation ila soco insha allah wax badan ayaa soo socda narcissist marka wuxuu bilaabaa inuu control situationka bilaabo and it happens between two actors badanaa wuxuu sameeyaa laba qayb uu kala sameynaa dad oo asaga wax ku shubay sida hadda flymanki markaa kasoo hadlayo kale inuu qof asaga wax uu ku soo shubay iyo koox kale ayagana kasoo horjeedayo arrinkan ay sameeyeen marka muxuu sameynaa wax la yiraahdo chaos dagaal muxuu Soomaali dagaal ku bilowday chaos again waxay dadku soo dagaalaan oo laba group laba qabiil laba qof u kala baxaan one qof oo narcissist ah wax uu plan gareeyay then marka dambe out of control noqda laakiin this is waxa ka hadlaa insha Allah anything ay yani u qaadan kartaa xagga shaqada xagga family-ga xagga qabyaalada dadka isu kala saaraan isu dhibaateeyaan ay noqon kartaa so now aniga family-ga hadana dib ugu soo noqonayo qofka narcissist markuu third party uu keenayo dad saddexaad wuxuu u keenaa in order to remain in control inuu asaga in control ahaado
waayo asagaa raba inuu situationka xalalkas uu u socdo wax walba u socdo qaabka asaga u rabo waayo ma doonayo qofka kale uu dhibay inuu voice yeesho qofka kale uu dhibana voice ma yeelan karo oo wuxuu galay silent asagana silent laislama hadlaayo so yaa hadlaayo labadii groupkii uu diray yuu u tagayaa groupkii qofka kale oo family ah ama qofkii kale so meesha maxaa ka dhacayo in dhibkii labadoodii isku hayeen dhib kasii ballaaran oo weliba bam sii qarxo subxaanallah oo zaa'id uu noqdo dhibaato weyn ee familiga gaaro oo dhibkiina uu noqdo mid xarigi uu sii dheeraado okay maxay kaloo sameeyaan the main plan qofka narcissist wuxuu yahay in divide maaragtay gamekaas uu ah inuu labada koox kale divide uu ku sameeyo qofka kooxdaas kale shaqadoo kale waxaa laga yaabaa inuu ku yimaado managerkaaga oo ku dhaho hebel qofkan a isla shaqaysaan oo ama lineka isla samaysaan islama hadashaan ayaantaan waxaana adigina ma soo dirin qofkaas kala soo diray ama waxaa laga yaabaa adigu inaad tiraahday maxaa la dhahaa qofkan islama hadalna I don't want to talk to because nafteedii caafimaadkaiga ilaashana and you entitled that inaad dhahdid waayo sometimes narcissist markii uu toxiciisa bato healthy kuma ahan so in order for you to be healthy waad ka aamusi kartaa so aamuskaas ay ka aamusta qofka narcissist opportunity u arkaa wuxuu arkaa opportunity aad u balaaran aad u weyn wuu dhaqaaqa wuxuu u tagaa managerka oo kale wuxuu leeyahay qofkan ilama hadlo and we need qof negotiation markaas qofkii loo soo diro uu asagii wuxuu ku shubayaa qofkaas wax sii kala fogeeya qofka kale u tagaa so in between meesha maxaa kasoo dhalanaya another narcissistic kasoo dhalanayo hadhowdina uu maaragtay uu noqdo wax ka baxa qadka so okay tactigas muxuu u sameeyaa qofka narcissist ah ama maaragtay dabeecadaas muxuu u sameeyaa ama dhaqankaas waayo u sameeyaa wuxuu u sameeyaa again inuu egogiisa kor u qaado in yacni aysan waxba sharaftiisa gaarin in uu sharafta markaa leeyahay ego waxay ka wada isla weyni in yacni uu hamigiisii uu kor usii qaado uusan qaladkiisii la ogaan waayo qof kastoo ibni aadan qalad galo qaladka waa normal waa qaladka waxaa naga dhigay ibni aadannimaba oo aan kaga duwannahay malaa'igta ilaahay subxaana watacaala uumay shaydaanka uga duwanna oo qalad aan qiranin annaga laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin ibni aadan ayaa u nahay markii nala sameeyey qalad inuu naga dhaco qaladkeen aan qirano oo hore usii soconno taasuna ilaah nagu jecel yahay uunu nagu siiyaa dembi dhaaf uu nagu soo dhawaystaa uu dhahaa addoonkeygiyo iweydiiso dembi dhaaf weydiiso dadka qalad ka gashay laakiin qofka narcissist ah waa qof yacni aan ogoleen oo jiro ku jirta gudihiisii aan rabin inuu dawo raadsado jirada ilaahay wuxuu u keenay qof walba inuu caqli u leeyahay inuu dawo raadsado laakiin qofka narcissist ma ogola inuu raadsado so marka wuxuu sameeyaa egogiisa inuu kor u qaado again maxaa kaloo dhaca behaviorka marka waa maxay ee projecting ku sameeyaan tan waxaan kusoo qaadanaya tusaale familiadoo kale hooyo iyo aabo kale hooyo iyo aabo labadooda qof baa ah narcissist okay labadooda qof markuu narcissist yahay qofka narcissist marka wuxuu ka raadinayaa ila meeshan workplace ma ahan triangulation yani dad kale uma yeeranayo wuxuu bilaabayaa triangulation inuu guriga family ka dhex dhaliyo triangulationkaas uu family ka dhex dhalinayo waxaa ka mid ah waxaa dhici karta in labada hooyadii aabaha inaysan isla hadlin oo ayagana again ay kala aamusan yihiin aamuskaas ay kala aamusan yihiin ilmihii ayay wax u kala diraan laakiin tan waxaan kasoo hadlaya qofka narcissistiga ah wuxuu samaystaa labo kooxuu sameeyaa guriga iyo labo koox ka abuuraa koox wuxuu ka abuuraa waxa la yiraahdo scapegoat golden markino child cunug maaragtay oo waxba aan qaldin oo asaga image ka samaysanaya anana gadaalka ka fasiri doono insha Allah wuxuu samaystaa waxa la yiraahdo golden child iyo scapegoat child waa idin fasiraya insha Allah Soomaali ahaan golden child waxa cunug caana madaadsha ah waalidka samaysto scapegoat child waxa cunuga يعني ilmaha waa aragtay waxbay qaldaan waxbay sameeyaan waalidku kaas kale wuxuu u qaadanaa cunug waxba aan waxba tarin oo maanta dhan qalad galo 24/7 cunug madax adag cunug gardaran cunug khaldan u qaata so ilmihii laba u kala saareen why ilmihii u kala saareen why marta ina ogaatid because qofka narcissist self image iska haysto ayaa khaldan marka wuxuu isku dayayaa the bad image inuu arko waa cunuga oo ah scapegoat cunuga oo dhahay cunuga khaldamo iyo golden child iyo dhanka kale uu wanaagsan yahay image-ka kale asaga iska haysto inuu arko si uu projection ugu sameeyo ilmaha ugu daadiyo oo yacni uu asagii indhihiisii wixii uu sameynaa uu ka arko again haddaa iday fahmin waan kusoo celinaa reframe aan ku samayn doonaa waayo u kala saaraa oo uu laba ilmahaas uu laba nooc uga dhigaa because asaga ayaa selfish ah wuxuu rabaa imagekiisa gudaha ku jiro inuu laba u kala saaro labadii u kala saaro inay noqdaan waxuu arki karo uu isku diro فهميسا markay isaas ay noqdaan hadhowdii maxaa dhaca familkaas wuxuu noqdaa dhibaatooyin badan ee la kulmaan
ilmahaas waxaa laga yaabaa hadda fiiri golden child cunuga ay ka dhigtaan oo kale wuxuu bartaa waxa la yiraahdo laga yaabo hadda golden child cunuga ay u doortaan oo kale inuu waalidka kale ku diro inuu waalid subxaanallah waalidka kale u dhaho you know hooyada ma fiicno aabaha ma fiicno waa aabaha abusive waaye waa aaba qaldan waa aaba maaragtay kana hooyada waa abusive hooyo saas ah ama cunugii oo u dhaho kale or u tag lacag iga soo qaad ani lama hadli kari fiiri ilmahana subxaanallah relationship markay noqoto they should not get involved at all hooyay aaba hadday tahay problemka inuu ayaga labadooda ku koobnaado subxaanallah that's the best way waayo ilmahaas already they suffering waxay suffering ku yihiin aragtiday arkayaan labadii waalid that they don't get along taasna waxaa kaga hadla buugayga upbringing beautiful children from the inside out iyo asagoo soomaali ah maaragta oo ku qoran barbaarinta ubad qurxoon dhibaatooyinka calaamadaha u geystaa ilmaha self esteemkooda so ilmahan maadaama ay laba nooc u kala bixiyeen ay dhaheen one waa golden xataa markay weynaadaan we're not talking about ilmo yaryar waxaan ka hadlaya experience dad waaweyn ay waxaan arkay still isku dhegan waayo ilmihii waxaa lagu kala abuuro jealousy waxaa lagu kala abuuro adigaa fiican adigaa favorite ah adiga kana hadhowdina wixii way weynaatay waayo waxa u sameeyaan qofka narcissist u sameeya again inuu comparison ku sameeyo oo yacni satisfy uu ku noqdo waayo wuxuu rabaa gamekiisa inuu meesha kasii wato waxaa laga yaabaa inuu waalidka xataa ka aamusay uusan la hadlin waxba ku darsanin way u sameeyaan reasonada u sameeyaan waxaan ku siinaa 3 reason number 1 waxay u sameeyaan in spread haters in nacaybka lasii maaragtay uu sii faafo dadkii soo dhexgeli lahaa ee arkaan family chaos ah wixiina ay chaos sii noqdaan ay sii balaariyaan subxaanallah also they divide inay family kala gooyaan familygana waa muhiim inuu together ahaado familyga waa qoyska inuu number 1 together ahaado waayo labada qof oo kala jabo ama kala dhaco hooyadii aabaha hadday noqdaan ilmaha waa inay together noqdaan indhahooda ay ka arkaan jacayl waayo hooyadii aabaha way jecel yihiin ilmahooda sax ilmahaasna arkaan laakiin yaa ku abuuro nacayb inuu hooyada mir aado midna aabaha aado yaa ku abuuro waxa ku abuuro waalidka midka narcissist ah honestly midka narcissist ayaa ku abuuro wuxuu kaga sheekeeyaa xumaha uu qofka kale waalidka kale uu leeyahay waxaa dhici karto in uu maaragtay ilmahaas waalidka markuu wax isku kala diro kale u dhaho ayuu isla hadlayn u dhaho okay orod aabaha ama hooyada u tag kasoo qaad waxaas cunugii inuu asagana marka dambe وكان ما دران يا scapegoat كما دران عنق والدك كدغ انه عنق nothing yahay waxa uu ka soo qaaday xitaa cunugas markuu weynaado inoo waxa ku dhaca scapegoat cunuga u bixiyaan oo cunuga yani maanta dhan qaldo ama wax qalad sameey ilaa ay weynaadaan xitaa waalidkaas narcissist wuxuu isku day xitaa in relationship cunugas markuu weynaado uu guursado inay ka sii halayeen ay ka dumiyaan waayo cheapkii ayaa ku jira oo wali aanan ka bixin xitaa waxay sameeyaan inay siblinka kale ku diraan oo dhahaan soo ilaaliya wax relationship fiican ma samaysan karto nolosheeda ma wadan karto ama noloshiisa ma wadan karo ee waliba ku diraan waxa la yiraahdo fly monkeys oo dadka fly monkey badan ee u diraan oo qofkii cunugaas oo guriga ka baxay oo weynaaday still uu ku sii jiro diiqad way dhacdaa subhanallah and again marka to shame on you qofka inay adiga shame kaaga dhigaan ama ay kugu ceebeeyaan ay u sameeyaan ay u raadsadaan qof triangulation ama third party qof kale oo ka baxsan family-ga si uu warki u faafiyo ogowna familku wuxuu haboon yahay ama qurxoon yahay markii ay ku koobanta laakiin markii narcissist uu ku jiro qasab waayo qofkaan yani uu isiraado waxa sometimes waxa narcissist triangulation uu ka dhashaa arabayna again idin sharaxo waxa kale uu ka dhashaa dhinaca kale markii labada qof mid narcissist uu yahay labada qof ama meesha ka wada shaqeyn ama waalidkan ku soconayna insha Allah uu mid yahay narcissist midna uusan ahayn waxa dhici karta kan aan ahayn oo narcissist aan ahayn waaya in uu xal rabo in uu rabo in gurigan uu dago in uu rabo in uu familkiisa normal noqdo wax laga yaabaa inuu qof inuu raadiyo qof yani soo dhaxgala oo asaga silent uu ku socdo qofkaas uu soo dhaxgalay markuu u diro qofkii kale narcissist ahaa ayaa wuxuu ku sameynayo captured oo hadaladiisa mesmerize ku sameynaa sida magic oo kale subhanallah mesmerize markay ku sameeyaan qofkii waxay noqonaysaa against wixii asaga dib ugu soo noqonaysaa dib markay ugu soo noqoto groups la kala noqona groups marka la noqdana waa wax maaragtay hadhoodii aan waxba tarin insha Allah anu ku soo gabagabeyn doono waxaan ku siinayaa 4 wax aad iskaga ilaalisid in aad maaragtay aad dibkaas ku isaga ilaalisid for example oo kale groupkaas oo kale marka ku yimaado oo triangulation ku saabsan oo qofka narcissist uu soo diray oo si yani ayuu peacemaker isku dayayo laakiin oo wada oo aad ka dareemaysid hadalladii ay wadaan number 1 do not react waxba yani reaction ha sameynin respond ha u sameynin just gadaal uga deg waxa kaloo aad ku dadaashaan qodobka labaad trapka ay ku dhigayaan ama dabinta ay ku dhigayaan iska ilaali dib u deg again
saddex mara avoid isku xijiya. Avoid haddana waxaa iska ilaalisa inaad contact la samaysid, inaad la macaamishid ama la dhaqantid ama u dhawaatid dadkaas lasoo diray. waayo hadalka way soo kala fasireen, and sometimes ay qaladkooda ma ahan, waxaa soo buuxiyey qofka narcissista ah. Then qaarkood markay ogaadaan sida fly monkey oo kale, they get out. laakiin badankooda ma ogaadaan, waxay sii wadaan wixii hadhoodii dab iyagana isma ogeyn inay dab shidaayaan. Sometimes markay is ogaadaanna is too late, waxay kusii socdaan, waxaa soo baxa ayaga egogoodii oo selfkoodii, imagekoodii, laftigoodii. Then waxay sii bilaabaan in ay maaragtay sii dhibaateeyaan familkaas ayagoo already dhibaateysnaa, oo qof ka mid yahay narcissistic ahaa, ilmihiin ay ku dhibaateysnaayeen oo dhibka uu soo gaarayay. And also waxaad isku dayda haddii aad tahay qof la nool narcissist ama oo triangulationkan uu ku dhacay, increase your self-worth. kor u qaad self-worth, yani naftaada qiimeynteeda kor u qaad. naftaada ha ku dulleynin, ha isdhiganin, utu dareen inaad tahay qof ilaahay subxaanahu watacaala karaameeyey, in aad tahay qof yani ku jiro imtixaan ama fidna ku jiro. fidnada waxaa ayada anaga qof ku hayna ama anaga nalagu hayaa, sida og tahay. waayo qofka markuu maraayo waxyaalahan oo kale waa caqabado waaye. caqabadaas uu maraa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku jeedaa, sida leerka u cad yahay, sida habeenkii, sida maalinkii. waayo allah subxaanahu watacaala ayaa wuxuu maaragtay ku siinaya challenge waxa aad qaadi kartid oo awoodid. again ogo wuxuu kugu siinayaa ajar every single time aad la dhiilgaraynaysid qof saas ah, ajarkeeda allah subxaanahu watacaala wuu ku siinayaa. waxaa kaloo aan kusoo gabagabeynayo oo the best ah, subxaanallah, inaad every single time qofkaas dhibaataysan oo narcissistic ah, dabeecadaas leh oo silent treatmentiga sameeya, dadka yani triangulationka u isticmaala, ilmaha isku dira, ha habaarin, u duceey every single time. afkaaga ducada ha ku jirto, astakfaarta badi, ilaahay u bari. waayo ducada markaa u duceysid, wallahi subxaanallah, ducada waa powerful. malaa'igtana adigana waxay ku leedahay intiyo in la eg. qofkaasna waxaa dhacaysa in ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bedelo adiga ducada aad duceynaysid si aadan uga quusanin. waayo inta xanuunka uu kuu geystay waa xanuun aad u tiro badan. qofkana waxaa aniga markastana adinku waaniya, adinku soo celinayo, dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin psychological aan sheegaya, manipulation ku jiro, waxay ku gaarsiinayaan healthigaaga dhibaato gaarsiinayaan. ha isku dayin only inaad internet wax ka akhrisid, inaad aniga kaliya iga dhegaysatid. waxaa isku daydaa in aad healing samaysid oo aad ka daboodid oo aad raadsatid maaragtay qof professional ah, inaad counselor raasatid, qof kula hadla raasatid, qof the right person ah oo arrinkan maaragtay kaa caawiyo raasatid. in aad hadhowdi waddo waxaad samaynaysaa inaad wixii ka baxday. otherwise waxaa noqonaysaa qof entire whole years ma arkino 10 years camal ku dhex jira oo aan weli ka salgaarin, naftiisana aan ka bixin. these things nalooguma talagelin inay gudaheena ku jiraan, anigoo aan markale idinku soo celina, laakiin dhibkeeda aad buu u dhib badan yahay. at the same time I can feel qofka dhibkaas usoo maraya, waa ku dareemi karaa. waxaana avoid garaysaa in aad adiga naftaada blame saartid. increase your self-worth. waxaa idin leeyahay dhammaan hadduu maaragtay videoga isleedaha qof kale walaalo anfici doona insha allah, u dir maaragtay qofkaasna kuwaan inuu subscribe ku sameeyo. waayo waxaan soo gelin doonaa in badan oon kaga hadli doona narcissist iyo qaabo badan. commentigiinana waxaan jeclaa insha allah inaad kusoo mention garaysaan topican hadduu uu ku anfacay, mention it again, kuna soo qor waxyaalaha kale oo aad doonaysid inaan kaga sii hadlo. waana sii wadi doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.